xuska munaasabadda 13 ee ka soo wareegtay sanad guurada 18 May oo dhammaanba si ballaaran looga xusay daafaha adduunka ayaa waxay sidoo kale si ballaaran uga qabsoontay waddankaasi Australia gaar ahaan magaalada Perth. xafladan ka dhacday waddankaasi Australia oo ahayd tii ugu ballaarnayd ee abid laga sameeyo waddankaasi Australia ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Australia gaar ahaan magaalada Perth. munaasabadan oo ay isugu yimaadeen dhalinyaro, waayeel, cuqaal, waxgarad, culimo awdiin iyo ururada haweenka ayaa ahayd mid dhammaanba dadweynaha goobtaasi isugu yimid aad ka dheehanayso shucuurtooda calanka muuqa dheer ee Jamhuuriyadda Somaliland oo dhammaanba ku xardhanaa dharkii ay dadkaasi xidhnaayeen. munaasabadan oo lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka u ah Jamhuuriyadda Somaliland qaar ka mid ah ayaa waxaa khadka telefoonka kala qayb galay wasiirka duulista iyo hawada Jamhuuriyadda Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxaana hadaladiisi ka mid ahaa ugu horeyn sida tan. عليكم السلام. xafladaasi waxaa xidhiidhinayay Cali Cabdiraxmaan Weef waxaana halkaasi khudbado dhaxalgala ka soo jeediyay Cabdiqani Ismaaciil Xaaji Nuur iyo sidoo kale gudoomiyaha qabanqaabada xafladaasi Axmed Ismaaciil waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dadkii goobtaasi ka hadlay sida tan. anigu waxaan hadii Ilaahay idinka leeyahay caawa aan ku bilaabay mowduucayga taariikhda waxaan isku dayaynaa ka hadlo taariikhda Somaliland. taariikhda Somaliland kama bilaabanto 18 May kama bilaabanto 26 June. taariikhda Somaliland waa taariikh dheer. dadkan reer Somaliland waxay deganayeen geeska Afrika boqolaal sanadood amaba kumanaan sanadood. anigoo ku hadlaya magacii guddidii qabanqaabada dhammaantiin haweenka, odayaasha, dhalinyarada, dhammaan dadweynaha halka nagala soo qayb galay hambalyo waan idin mahadcelinayaa, aad baan idin mahadcelinayaa. Somaliland horta waxa weeyaan waddan maanta astaamihii buuxiyey qarannimo dhinac walba markaad eegtid dhan nabadgelyo isku fillaanna gaadhay. waxa kaliya maanta aan sugaynaa waa ixtiraaf. Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato. But I want to focus on Somalilanders in Perth because 25 years ago I met the first family who came to xafladan xuska 18 May ee sanad guurada 13 ayaa waddanka Australia uga dhacday sidii ugu fiicnay abid. Ilaahay Cabdi Cali, TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, magaalada Nairobi.